soo dhawaada ciyaarayna ay gali doonaa waxaa maanta aad u falanqeyn doonaa Premier League kulamadii ay kala xari waayeen Arsenal iyo nimanka la yiraahdo Man City. Arsenal markii ay badisay 3-1 ku badisay waxa la isdhahay Man City ayaa taa kala dhigi doona, Wolves ayaa markaas ay calaamad saarteen gabarkan oo dhigteen reer Arsenal walo markii dambe ay ku fashilmeen arrintaasna ay socon weyso. Marka isdaba joogaasi culays ay keenay waxa kale jirto in hadda la sii saadaalinayo kooxda qaadi karto Premier League maadaama Arsenal laba kulan u hartay nimankan lagu magacaabo Man City ay u hartay 3 kulan. Marka xaaladdu way sii macaanaysaa. Waxa kale oo sii macaanaanayo kulamada kaalimaha kale markaas 6aad iyo 5aad iyo 7aad ay ayaguna xiisad sii yeeshay maadaama Newcastle iyo Chelsea iyo Manchester United iyo Arsenal isugu jiro Tottenham wixii dhan qorshe la galeen Europa League laba koox aad laga rabaa, laba koox Conference Cup ay aad doonaan marka 5aad iyo 6aad ay aad doonaan Europa League wixii ka dambeeyana waxa way Conference League waa labada ka sii dambeeyay. Marka dadka Europa League hadda ordayaan qaarna toofog ordan oo hadda toofog afarta maadaama la xaqiijiyay qaar relegation ka carayaan Ipswich Town aydan waxay u soo gudubtay Serie A oo markaas Premier League ay toos u soo gashay. Marka ciyaarayna barnaamij kasta toos u gali doonaa waxa barnaamij kula sugan Arrow oo markaas si weyn oo la socday ciyaaraha Arrow barnaamij ku soo dhaw aad baa u dhawaay Mr. Goli. waxaan rabaa inuu kulamadii shalay dhacay horta u jeeday Man City iyo Arsenal isku jawaabeen. Dadkuna waxay dhahayeen liigani Arsenal qaaday kuwa waxay leeyihiin Maya Man City qaaday haddana gabagaba ay baash maraysaa kulanka baaqi ay leedahay waxay ciyaari doonaan arbacada soo socoto waxay ciyaari doonaan Tottenham iyo Man City waxaa noqonaya kulankii baaqiga ahaa sidaas daraadeed markay kulankaas ciyaaraan kadib baraja ay noqon doonaan oo waxba kulan u haro 2-2 oo hari doonto kasii hor laakiin Saturday iyo Sunday wala ciyaari doonaa Sunday waxay la ciyaari doonaan Manchester United iyo Arsenal ciyaari doono Saturday waxay ciyaari doonaan nimankan lagu magacaabo Fulham iyo Man City bal adiga kula tahay inay sanadkan dafi doonaan Premier League horta niyo Premier League sanadkan lama saadaalin karo sababtoo ah waxaan loo saadaalin karin xitaa muxuu ahaa waxyaalihii ay ku sameyn jireen predictionka macnaha saadaalin jiray wuxuu u saadaalinayay Liverpool markuu Premier League bilaabay waa ogeynaa maraya annagoo marka bini'aadan ah macnaha ma dhigi karno inkastoo laakiin bini'aadanka iyo computer markii isku fiiriyo macnaha computerka badana uu sheego macnaha 99% macnaha si ay ka sheegaan inuu macnaha ka prediction si ay ka aaminsan yihiin horta Premier League gabagabo jooga yani waa la iska qeexi karaa oo waxa la dhigi karaa team hebel qaadi karo laakiin Man City iyo Arsenal wali waxay ku jiraan race macnaha la dhigi karo waxa way 50-50 macnaha race la dhigi ku jiraan horta Arsenal waxa u hartay 3 game oo tough ah 3 game oo tough ah inay ka bixi doonaan hadda 2 game oo hartay لو جي مع دوا Everton يا Arsenal Manchester United Everton Manchester United waa 6 dhibcood 6daas dhibcood Arsenal ma qaadan kartaa intayna ku dhici doonto haday qaadato waa su'aasha la isweydiinayo horta Man City dhankeeda daan fiirino Man City waxay rabtaa macnaha in 3 kulan ay hadda u harsan inay badisay rabtaa sidee ku badin kartaa marka waxay ku badin kartaa xalay wacdarada dhigtay iyo jawaabta xalay ay bixisay gameka Arsenal ay badisay ciyaarta badisay yani ay ku tusinaysaa Man City wali inay macnaha rabto score inay jibiso laakiin aga dhacgale waxa jirto in macnaha wargeys soo baxay baa loo sheegay in macnaha la sheegay in FIFA-ga sanadkan ay la doonayaan inay kaabka qaado FA-ga inay macnaha ay doonayaan inay qaadaan Arsenal mise Liverpool inkastoo laakiin Arsenal hadda ay risk ku saartay waxay la doonayaan lahay inay Liverpool meesha ka baxday Arsenal ay la doonayaan yani FA-ga way beeniyeen waxay yiraahdeen anaga waxaas kama jiro gameka xalay waxa la arkay in xitaa penalty ban ah in loo dhigay Man City sidoo kale Arsenal oo aan xitaa aan taageero waxaan arkay maalin dhaweyd in loo dhigay penalty ban ah يعني ريغورadaas oo ka dhigay wala isku heystay oo Havertz goalkeeper ma taaban taas qalad taas loo joogo taas yani in ay qalad waxa ku cadeynayso Havertz asaga iska dhacay ma ahan xitaa goalkeeper uu ka tagay gool hayaa maruu ka tago uu isriday macnaha penalty aad u raadi waxa la karaa Arsenal saad u jeedid in FA-ga ay la doonayaan ciyaaraha soo socda xitaa inay badiso laakiin Man City la doonayo geemanka ugu dambeeyay in lagu dhawo dhulka lagu jiido la doonayo laakiin saadaasheeda haddii aan ka bixiyo ana soo gabagabeynayo horta Man City cid macnaha hor istaagi karto haday noqoto macnaha Fulham hadda u harsan haday noqoto Wolverhampton hadda u harsan inay Tottenham hadda u hartay inay waxba ka qaban doonin waa garto male yani ma horto dadka ku hayo Arsenal way qaadaysaa Arsenal waa good performance sameynayaan laakiin performance-kaada waxa ka dilay waxay ahayd ciyaarta ay la dheelayeen Aston Villa ciyaartaas ayaa ilaa hadda reer Arsenal markii loo Aston Villa markii loo sheego home away ka qaadatay ayaa waxay kala dib badneed inta liigan ay soo dheelayeen 14 kulan ma aaminaysaa
oo hal uu ku jiro macnaha ambitan bis uu ku jiro oo xitaa aan ku jiro 10 game oo clean sheet macnaha asaas sameeyeen Man City ilaa hadda markii isku daray inta macnaha ay dheeleen ciyaaray dheeleen 30 macnaha waxay dheeleen 4 game ay dheeleen miya 34 game ay dheeleen ilaa hadda 10 game iska dhaafe 6 game oo clean sheet ilaa Man City hadda lahaad laguma hayalday laakiin waxa kasoo dhaxgalay draw iyo waxa dhaxgalay Luis ka laakiin gool darada waxa badan Arsenal 5 game laga badiyay Arsenal markay ka badan tahay drawgana waxa badan Man City Man City markay tabar darada meesha kasoo daciif kasoo galay iyada laftiga meesha ilaa ka hadda saadaal ahaan markaan saadaalino waxay noqonaysaa Man City in liigan ay doonayso inay afareysato laakiin meesha waxa ka muuqdo markaas uu fiirisa 3 game oo hore 2 game away sida Fulham oo markaas London ay waadi doonto Tottenham London waadi labadaas game away isugu xigo West Ham markaas Itixaad ku ciyaar doona marka Arsenal waxay kaliya ku fikrayso kulanka Tottenham iyo Fulham midkood inay barbara galaan haday barbara galaan Arsenal labada game ay badiso kuwaana 3 game marka labada game kale hore ay badiyaan isku dhibca hadii la noqdo gooliska markaas goolisha macnaha difference ku kala qaadayo 6 gool hada already san Arsenal 61 gool xal ay gashay kama yareysato Man City meanwhile ayada laftirkeeda 4 gool ay macnaha ay 5-1 ma inta kasoo ku badiyeen 5 iyo hal ku badiyeen laakiin 4 gool loo xisaabin 4taas gool waxay noqonaysaa in ay 50 gool ayada gashay marka waxay noqonaysaa in macnaha 12 gool oo macnaha nadiif ah 54 gool ay Man City 54 gool sameeya يعني 6 جول يعني 7 جول noqonaysa markaas ama 6 gool oo nadiif ama 6 gool oo nadiif in macnaha laga horinayo marka waxay noqonaysaa game-ka Arsenal dheeris Everton oo waliba aan u jeedna maalmahan dambe 3 game ugu dambeeyay relegation-ka ka soo baxday oo bottom-ka macnaha iska ilaalinayso sidee noqon kartaa marka Arsenal saadaasheeda maxay noqon doontaa Arsenal oo doonaysa inay Emirates ku casuumto Everton maxay noqon kartaa waa su'aashii is weydiinayo waliba sanadka dadka ka raabay ka jirtaa way ku jirtaa waxay kamid tahay xitaa inaa ogeed ma ogiye 2019 iyo 2020 Premier League la dheelayay yani waxa dhacday in Everton wiilkii hadda macnaha ay ka tagay Gray loo yaqaan ee Ingiriiska u dhashay waxa dhacday in macnaha uu ka dhaliyay last minute goal ayadoo hal marayso inay Champions League uga hareen Everton horta ciilal badan horta u qabaan umaleyn ma iyada laftiga Arsenal ay dhulka isdigi doonto laakiin Manchester United oo sidoo kale iyada laftiga la kala maqan yahay oo xitaa Casemiro ficlaan ay hayso horta waxay noqon doontaa wixii oo dhan ka soo duubo Arsenal oo aan doonayno in labadaas game macnaha ay badis anaga Arsenal fans ana daanahay iyo Manchester United oo doonayno inay Fulham iyo Man City macnaha ma ka Fulham iyo Tottenham oo labadaas ma hadda wax laga rajeynaa because West Ham waa unpredictable waa macnaha lama guriga waxay aadaysaa Man City guriga Itixaad aadaysaa laakiin tan oo aadayso macnaha guriga aadayso oo macnaha Tottenham aadayso iyo guriga macnaha aadayso muxuu ahaa Fulham aadayso labadaasi game waxaan leenahay in midna barbara ay gasho midna inay ka badan Tottenham wajid maal waxay sameeyeen waa daladii Arsenal ku dhigayeen Tottenham inta badan waa ku adkaysaa waa ku adkaysaa waa kii Champions League awgeed ay finalka xitaa ay ku tagayso finalka ay ku reebayso ama waa xasuusta ama leh 2018 ama leh waa kii ay Ajax inta ka soo baxday Man City iskugu imaadeen sama finalka ay waxa artwacdaan ku dhigayeen inkastoo laakiin waagaas ay ka wanaagsaneed hadda waxaan dhihi karaa laftirkeeda wanaagii haddana inay hadda kusii jiraan ee noo qabtaan aan rajeynaa aad iyo aad waa mahadsanta Aro ciyaaraha halkan aan kusoo gudbin doonaa maanta kulan Liverpool iyo Tottenham ayaa jiro kulamada kale kulamada soo adag maaha aydan wixii kasoo kordho waan idin soo gudbin doonaa Tottenham maalmee la soo dhaafay jugta ku socotay meesha ku dambeysay Brino Manchester United iyo Crystal Palace ayaa la rajeynaa inay ciyaar doonaan marka halkan ay ciyaaraha soo gudbin horta waxaa la xaqiijiyay aan ka dhaxgale waxaa la xaqiijiyay timamku soo gudbay Champions League waxaa jirta afartan la xaqiijiyay afarta waa la xaqiijiyay soo maaha inkastoo laakiin wali ay leeyihiin saddex kaliya la xaqiijiyay Premier League ma Aston Villa waa la xaqiijiyay Zero Ega waxaa la sheegay in macnaha waxaan ka rabaa maxaa la Spain waxaa la sheegayaa inay macnaha 5 team macnaha inay ka soo bixi doonto sida hadda la sheegay hala loogu diray maadaama ay macnaha iska xaadiriyeen semi-finalka waxaa la hay 5 team inay ka soo bixi doonto sidoo kale waxaa la sii caleemo saarayna sidoo kale Germany waxaa la sheegay kan maadaama Dortmund ay tagtay ayadna semi-finalka iska xaadirisay in macnaha Bayern Munich ay joogto shan laga xaadiray isku soo duubo Ingiriiskood asaga laftirkiisa Jans ku heli jiray waxaa la sheegay in sanadkan wax ka tagay semi-final aysan jirin maadaama afarta in la xaqiijiyo la rabo marka Liverpool ayaa waxaa la sheegay ay khamiisle iska ahaan jirtay iska khamiisleen jirtay waxaa la sheegay inay Champions League ka soo xaadirtay Liverpool oo macallin cusub
وجيه عصب يولي بلليه حدنا وحيلا كل مدونتا عيارتوي عصب إن حتى عدل تكاد دونيسو أي سوق قشو عيارتوي بدنا معناه إن سوق جيز يعني اللي رجينا سيدا أرنولد أوكل هذا الأشياء إن معناه ودونا إن ريال مدريد لكبيرو وحيلا بدن هذيك معناها اللي دونا وجيه بدن إن كل مدونان marka Champions League sanad ka soo socdo Premier League xiisa gooni ayuu yeelan doonaa dabcan dadka ay galabta kooxda isla socodsiino ayaa macnaha doonaya arwa ma santahay barnaamijka Grey Gonis subscribe sarta meel fogna gaarsiinta barnaamijka barnaamij lama kulmi doonana fi amaan Allah